السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد السلام كمل كاستأدون كجوكتان هل كان نقداو النسان وابوينو official هذه تهداو شدك وغريسي لاقا وإنو مهم شيركا وإنو ديرقلي سبسكرايبكا وإنو فايدو الحمد لله. صباح وناكسن هذه صباح كوتهاي قلب وناكسن قلب هذه كوتهاي هبين وناكسن هبين كوتهاي وحول بو كوتهاي وناكسن الحمد لله. هذا حين حلي الصباح maanta waxaa inoo galnay tobankii dhexe alxamdulilah. tobanka hore waa inoo soo dhamaaday. waxaa la dhahay tobanka hore ee ramadaanka waa raxmad uu ilaahay soo dejina saa wada jeedaanbo iska baashaalayay 3 days ka hor waa noo da-ay alxamdulilah. maantana waxaa inoo bilowday tobankii dambi dhaafka ee tobankii dhexe. الله سبحانه وتعالى وحكى برينا إنه إلهي نقدر طبنكي دحى فضل جدا إنه إلهي نقدر كو دمي جدا الضعفة بني آدم كو أسك جف بدني هاي الله سبحانه وتعالى وحكى برينا إنه دمي جدا إلهي ضعفة. سأقولنا رمضان كو حكى كوبايا هاي سدح مرحلات طبعا كهرب على الله رحمة دعاء طبعا كده مغفرة وعي دمي ضعفة طبعا كده ذنبنا عتق من النار إن قف والبو مسلم إن لغفقيه نارتا. الله سبحانه وتعالى طبنكي هوري نصيبه يالنا وخوب سنة الحمد لله. طبعا كان دحين وحان كبرينا إلهي إنو إلهي إن نقديوكو دنبيكو دافة طبعا كدنبنا إلهي نقارسي أو كوبا نارتا لغو حورينا انت اسكدب سحابتا إن يوتيوب channelka laba maalin ka hor waxaan soo gelinay laba qisooyin ah. qisada ugu horeysa waxay tahay saxaabigii Julaybib. qisada xigtana waxay ahayd labaad Cabdullah ibn Zubayr oo qisadaas ay runtii ahayd qiso aad u macaan badan ka hadlaysayna sheek saxaabigii cabay dhiig nabiga sallallahu alayhi wasallam. marka asxaabta waxaan jeclaystay inaan videogan idin la wadaago. asxaab badan ay dhahday inuu videoyaasha noo soo badi haddii aad adiga qayb ka tahay waxaan ka codsan lahaa in qaybta commentiga aad nagu soo dhaafto qisada aad jeclaan lahayd inaan kula wadaagno ama aan soo gelino youtube-ka. saan hore idinkugu sheegay muhiimadda waxaa iska leh mar walba team baaweynaho. qaybta commentiga nagu dhaaf qisada aad jeclaan lahayd inaan kula wadaago. فيديو إن أكون إرادة مربو أنت سهربا إن الإذن سو جدبيو إن شاء الله. ما أنت نحن إذا كوتا لجلي رنتي خسائر أدم عم بدن إن شاء الله. نحن إذا داب شوعا إن شاء الله. قبتكم أنت سهر إذا كو شيء جيبه نلقو ذاك خسائر أرجع على إن إذا سو جلينا يا عمرك إذا كو دهرين إذا كان البحر إذا كيو شيخ نشيخ بري قسم وغشيكي wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xerta aad u jeclay iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa. akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey, taqwad baa ilaahay siiyey, cilmi baa ilaahay siiyey, alla ka cabsi baa ilaahay siiyey. laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo, masalladu ku tukanay inuu qaato looma ogolo. aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata dhariguu karin biyuhu dhaamin dabku u shidi iyada dhan buu cuntada siisiin. markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmee bay odhan. hadal ka keeni maayo uu khidmaynu خدمة أنا ما هلا ما شاكيو. أول أقل كجوديه سيكون دران جرتي بالليل. مركز دم بوحي كتري. أنا هديت ولا وان دالي حابة ذي صقرو. بيهنا عيل تيجي صدام عيل. نك الشيخ أنا وانك مجالده كبيه سئنه قاطع وما أقول. جعله احترام. أيوة قبع. مركز سوي الإله يستر. إلا هدي له وجاد الشيخ حابة قراية. وبيهنا دامنايا dadku waxay oranayaan war sheekha aqalka dib baa ku haysatay in kar qabtadan waa maxay sheekha dirad wala habaarka ku dhici
taabo markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta aadii xaaska aad iga dhigtay umul ciyaalka ilaahow ha igu hoojina maanta igu asto magaaladii buu ka baxay ardaydii buu yidhi muraad yar baan leeyahay iska hadhay buuro marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmuu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu yidhi libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiistaa la yidhi sheekhi xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kaleu ka soo saaray magaaladiiba la soo maray sheekhioo libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisi daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sidaa ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibuu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rabteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca dalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wata maanta xagga ka keentay oo iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasaa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo ma aragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaa bedel sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegayey buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray warag inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina mee baa lagu yidhi wuxuu ihi libaaxii islaantii hore iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiya innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadkee waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiyo o lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tiri kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaaddu hadday gaadhay tiri caaisha nebigu salaad buu usoo bixi jiray bay tiri ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay inuu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeye ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayn xaasaskii rasuulkeena u naxariis badnaa u dhibrin badnaa marka qiyamkaa wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay maskiidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah ani zinada ha lay fasaxa buuri ma dayn karaye wallaya inna lilah war maxa markaa buu nabigu ii daayay soo dhowow hale walaalama kula dhasheen haa wayla dhasheen gabdha walaalahay wayla dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu yidhi habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu yidhi dhimashaan ka aqaana markaa aad tidhi ii fasax zinada
kaba soo qaad haddii zinadii lagu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola tagay iyakuna raalli kalama abuu ku yidhi rasuulku markaa yaa rasuulla haddaba ii ducee markaa buu nabigu yihi soo dhowow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dembigiisana ilaahu dhaaf buu rasuulku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin acraabi nin reer baadiya ayaa masaajidka dhinacaa dambe intuu istaagu kaadidiisii miskiidka cawrada intuu la soo baxay buu ku kaadiyey markaaba saxaabadu ku yaaceen markaa buu nabigu yihi dacuuhu dhaafa buu nabigu yihi daaya buu nabigu yihi kaadida ha ku kala goynine meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba buu nabigu yidhi isagana iigu yeedha buu rasuulku yidhi nin acraabiyo reer baadiya oo magaalada madiina ku cusub oo lacalla laga yaaba inuu u yimid diinta islaamka inuu barto oo xishood weli aanan qalbigiisa xishoodku gelin iimaanku weli qalbigiisa uusan gelin diinta islaamka weli aan waxba ka garanayn waa masjidkii nabi maxamed cawradiisii kula soo dhex baxay kaadina ku talleejiyey masjidka dhexdeeda ayuu nebigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga iigu yeedha meeshuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba markaa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo keliya bas waa meel daahira salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu dhex akhristaa ilaahay baa lagu dhex xasuustaa iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin baa nebigu yidhi ummaddaydiyey asxaabtaydiyey waxaa ilaahay adduunyada u inii keenay inaad ummadda xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan ilaahay adduunyada iniima keenin buu rasuulku yidhi bashiruu walaa tunafiruu yasiruu walaa tucasiruu bashiruu war ummadda khayrka u bishaareeya buu nebigu leeyahay walaa tunafiruu ummadda khayrka ha ka firxinina ummadda naxariista ilaahay ha ka quusin ummadda infiraar ha ku ridin ummadda khayrka u bishaareeya oo waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa zamankani waa zamankii islaamku soo noolaanayey waa zamankii saxwadda islaamigu ay soconaysay qof diinlaa la doonayaa qof diin yaqaanaa loo baahan yahay qof dannimo leh ayaa iman doona in talada ummadda loo dhiibto cid walba ummadda hoggaan u qabani maayo ummaddani waxay qaa'id ka dhigani doontaa ummaddeeda taqaano qiimo leh oo ilaahay rasuulkiisa taqaana bashaaree ummadda khayrka u bishaaree waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa xanuunkan la sheegayo may ilaahay baan haysannaa ducadaa ilaahay noo aqbalayaa sadaqadaa bixinaa ilaahay nagaga qaadayaa ducafaa masaakiina baan nahay ilaahayna dayici maayo ummadda khayrkaa loo bishaareeyaa ummadda wax ka nixiya looma sheego ummadda rasuulka yasiruu walaa tucasiruu fudaydiya buu nebigu leeyahay haddaad wax sheega ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nebigu yidhi walaa tucasiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummadayda amar ilaahay ninka ummadayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliyiinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilaahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilaahay garabkooga ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqatu lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeydii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu waa kaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxweecad ma leh ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyada iyo taakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynayay buu ahaa
markaasuu nabigu noola yimid akhlaaq wanaagsan, dhaqan wanaagsan, dulqaad badan, sabir badan, adkaysi badan, naxariis badan, dhibrin badan, iska dhex socday dadka. ula cunayay iyaga, ula fadhiisanayay, ula safrayay, ula soconayay. kii u yimaaday la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nabigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi, uu sii wada jeesanayay. hadduu nabiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nabigu ma sii daynayn baa la yidhi. hadduu dad meel fadhiya nabigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo 3 jeer buu nabigu salaamta ku celinayay, assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum waraxmatullah, 3 jeer. kelmad hadduu ummadda u sheegayo 3 jeer buu nabigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo. markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nabigu yidhi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik. dabaqad kasta ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay, raacun bas. taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena. mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa. aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa. ninka dhallinyarada labada waali siduu ula dhaqmi lahaa shareecadda way ku taallaa. jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecadda way ku taallaa. xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecadda way noo sheegtay. qofka saacad aad wada safarteen, saacadda aad la safarteen walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay. diin dhammaystiran maxaa layna siiyey? diin dhammaystiran. say diinta nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqaynaa, waa inaan diinta beernaa. khayrka waa la beeraa, waa laga shaqeeyaa, maal lagu bixiyaa, waqti lagu bixiyaa, dhaqaalo lagu bixiyaa, fikir lagu bixiyaa, la qayliyaa oon la aamusin. haddaad qaylido waa lagu iman, haddaad aamustase waa laga aamusa. aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaan, soo jeed mise way seexdaan? ya soo jeed. aydii baa isku timiday, way tashadeen, waxay yidhahdeen anigo dadkao dhan habeenkii, khalqigo dhan habeenka waa jiifsadaane, way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wax o dhan way hooyanayaane, innaka maxaa ina wareejiye? waata aydu habeenka way wareegtaan soomadarka. salaada fajr markaa ka baxnay seexdaan baa la yidhi. habeenka o dhan bay qaylayaan, xaggan u kaciy, xaggan u kaciy, xaggan u kaciy. waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqigaa inay wax la qabaan, ay wax la wadaagaanoo oo habeenka inay iska seexdaan. tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay. tuugtii baa magaalada usoo dhacday. ila aygu habeenkii muxuu sheegaa? tuugtuu sheegaa. tuug walba aqalku ku hagaagay ba wax ka dhacay baa la yidhi. tuug baa markaa aqalku ku soo hagaagay, wuxuu is yidhi kuwan waa fuqaraa, waa masaakiin, aqalkooga wax ma dhex yaalle, orgigan ur gacan yar, waa madow dhulku mana arkaayo, kiishka ku rido. ay yaroo markaad meesha fadhiyo dee aamusaa lagu suureeyey mogta. aydii maxay ku suuraysa? alla seexda lagu suureeyey. aygiibu ku rita kiishkaa la yidhi. bannaankay ula baxeen. nin walow bal xalay aydii bu ilaahay naga jiifiye, bal waxaa la sheeqadka soo dhig. lacag, mid dahab, mid dhar, mid baa yidhi anigu aqal yaroo dad ducafaayo masaakiinaan ku hagaago urgac yar baan ka soo helay. kiishkii waxaa kaga soo baxay ay yar. soo tacab khasaar maaha? uu xanaaqay, war waan tacab khasaaray, waan tacab khasaaray. lugya gacan buu ka jebiyey aygii. waa abaalkaa buu. waala aygiioo lug jaban oo gacan jaban ayaa aydii u yimid oo yidhi go-aankii habeen hore la gaadhay ha laga noqdo buu. nabiga ku salliya. oo maxaa looga noqon baa la yidhi o wuxuu yidhi qaylada habeenkii aan qaylaynay annakana dan bay noo ahayd, ummaddana dan bay u ahayd. ismac ayuha almuslim, wallaahi xaqa ninka ka aamusa buu nabigu yihi waa shaydaan afla buu rasuulku yidhi. baatilka maanta meel walba ka muuqda haddaana ducaad noqon, in lam takun daaciyan fatakunu madcuwan. haddaad aduu ummadda khayrka ugu yeedhin adaa sharka lagugu yeedhiyo ugu. inaan yeedhnaa loo baahan yahay. qaylaan ku nabadgalaynaa. haddaad aamusta samiya, haddaad aamusto adigana waa lagaa aamusi. maalinba maalinta ka dambaysana ummadda khayrka wadda
way yaraan doontaa ogaada marka inaan dacwada u kacno qayladu waa dacwada weeyaan oo shaqada diinta culimada kaliya aan ku dayne caamadeena culimadeena dhalinyaradeenna odayadeena tujaarteena fuqaradeena shaqaalaheena madaxdeena mijaheena diinta dadaalkeena aan gacmaha isku qabsanno niyooda insha Allah dhahada oraya niyooda bal gacanta taago inuu shaqaale diineed oo la aqbalo ilaahay ka dhigo Allah inaga dhigo soo diyaar garooba anagu khamiista boosaasan u soconnaa ijtimaaci boosaasa khamiista dhici doona afar bilood iyo 40 jamaacado badan baan rajeynaa inay ka baxo ilaa 100 jamaaco daayinkuna caasimadii waxaa tihiin wadankee soo diyaar garooba jamaacada keena insha Allah wada mustaana video xiga ilaa inuu ku gaarayno waxaan kaga tagaa Ramadan Mubarak Ramadan Kareem sidaas iyo nabadgelyo